cabdixaafidow waxay marayaan waxaan hortaagnahay jeelka dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya hortiisa albaabka meesha ku quman ayaan taagnahay marka xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida oo dhan oo ugu horeeyo madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamuud ayaa gudaha xabsiga ku jirta waxaan maqlaynaa mar walba sacabayn oo isagii ayaa la hadlaya waxa laga yaabaa daqiiqadaha soo socda ama aan ilaahdo saacadaha soo socda in maxaabiistan la sii daayo intuuna gobol ku dhicin sidoo kale waxa tuban dadkii saaka u yimid la balamiye ee lagu yiri bari baa la diin sii deyn doonaa maxaabiista oo iyaguna oo dadkii ehelada maxaabiistan oo ayaa iyaguna taagan meesha marka waa lagu wada dhan yahay boqolaalan baabuur wax ku dhow ayaa xabsiga hor taagan oo dadka mas'uuliyiinta iyo dadkii ehelada qaraabadan ay leeyihiin Cabdi Naasir dadka laga yaabo inay markaas soo baxaan tira ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa arrintaas cid aan weydiinay ilaa dad badan ma weydiinay laakiin cid ma jawaabtay arrintaas oo mas'uula ma jiro laakiin waxaa la wada aaminsan yahay xabsigan inuuna nina ku halaynin marwo sucaad oo madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhawaan saacad ka hor soo dhigtay barta bulshada soo dhigtay in laga dhigi doono xabsigan dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida masaajid si arrintaas oo marar badan siyaabo kala duwan loogu celiyay marka waxaan aaminsanahay ama dadku ay wada aaminsan yihiin xabsigan inuuna dad badan inuu ninaba ku halaynin xabsiga laftiisana masaajid laga dhigi doono marka aniga waxay dhaheen wax yar noo sug mar dhawaad noo soo geli doontaa laakiin xukuumadda gudaha ayay ku wada jirtaa maxaabiistiina guryihii hoose ay deganaayeen baa laga soo wada bixiyey oo gidaar weyn oo xabsigu leeyahay oo meel barxada ayay wada taagan yihiin ama fadhiyaanba waa tahay laakiin waxaan maqlaa sacabkooda iyo waxaan maqlaa hadalka dhawaaqooda dheer ayaan maqlaa dumarka qaarkii way mashaxaradayaan oo waxaan islaahay waa dadkii xabsiga ku jiray ama waa dad gabdho mas'uuliyiin oo meesha kula jira madaxweynaha marka xaaladdu halkaasay maraysaa waa yahay Cabdi Naasir inkastoo aad tiri iima muuqdaan oo gidaar ayaa kaa xiga maadaama sawaxankana aad maqlaysa iyo mashaxaradii sacabka qiyaas ahaan ma boqolaalba kun ma gaarayaan xabsigu markay ay sacabka ay garaacaan waxaa isleedahay malaha meeshan kumaankum ruux baa ka dhow laakiin sida madaxweynaha hadda ka horba sheegay dad badan xabsiga kuma xidhna oo markii maalintii ciid ahayd oo wax badan uu kala qaadqaaday wuxuu ku tilmaamay dadka ku xidhan inay yihiin dad aada u yar hadda ka horna aan dadkii sii wadaynay maalintii ciidana wuxuu sheegay 900 baan sii deynaynaa marka dad badan waxay aaminsan yihiin oo isaguna uu sheegay inayna dad badan oo cadad badan oo saasi ayna hadda xabsiga ku jirin sababtuna ay tahay isagoo marar kala duwan oo badan oo hore la sii daayay marka laakiin xabsigu marka waa kulley gidaarka ku hareeraysan meeshuna waa meel aan aada sii weynayn bayla tahay xabsiga marka ay gudihiisa ay ka mashaxaradaan ama sacabka iyo sawxanka ay isku daraan dadku waxaa is leedahay maraha dad badan ayaa ka muuqda dad badan ayaa fadhiya is leedahay waa tahay Cabdi Naasir Xikim aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha BBC da ee magaalada Jigjiga oo imika ku sugan jeelka weyn ee jeel ogaadeen ku yaala magaalada Jigjiga oo la filayo in maxaabiista halkaasi ku jirta laga sii daayo Cabdiwahaab Cabdisamed waxa uu ka faalooday arrimaha geeska Afrika aad ayaan ula socday xaaladan haddaba goor sii horeysay ayaan weydiiyey maxaabiistan ilaa imika la sii deynayaa ee la filaya in la sii daayo sida ay ku timi ma siyaasadda cusub ee Itoobiya ay la socotaa mise warbixintii dhowaan ururka u dooda xuquuqda aadanahu uu ka soo saaray halkaasi oo ahayd warbixin weyn waxa aanu yiri sababtooda waxa weeyaan labada way tahay يعني warbixinta ay soo xuquuqda aadanaha sameeyay ku heshiisyada waddanka Itoobiya kamid weeyaan midda labaad ninkan isbedelka uu imika wado waxa weeyaan waxa ka go'an in Itoobiya meena oo dimuqraadi u arko in Itoobiya meena xorriyadda qowlka la tixgelina u arko in Itoobiya meena xuquuqda insaanka lagu tixgelina u arko in Itoobiya meena dimuqraadi dadka sudoonaya u arko marka ninkan isbedel xoog la ayaa ka muuqdo marka caadi ahayn ninka waa in macna ay ka go'an tahay in Itoobiya u nabadeeyo waa in ay ka go'an tahay in xisaab fara badan Itoobiya macna u ogolaado waa in ay ka go'an tahay in waxyaabihi hore dhacayna in dib u daaweeyo shaqada Itoobiya macna oo horumar leh Itoobiya oo baraara ah Itoobiya macna oo midaysan Itoobiya macna waxa weeyaan yani la jaan qaadaysa caalamka u arko taa weeyaan marka waa ka go'an tahay waa sababta inuu sii daayo rag fara badan oo ogaadeen barta soo dagaalamayay oo xabsida ku jiray inuu sii daayo waa tan keentay inuu yani ogaadeen liberation front maanta laga bilaabo maaha urur argagixis ah oo
oran yani waxa weeyaan yani u ogolaan inay xasaab samaystaan marka waxaa loo bahay ummadda soomaaliyeed marka inay fikirto oo ay fadhiisato oo ay midowdo oo macnaha waxa weeye yani aayaheeda iyo baraheeda ay ka fashidaan ummadda soomaaliya marka ay tahay ayaa looga baahan yahay haddii marka etoobiya dimuqraadi ay la jaan qaadayaana micna ay la jaan qaadaan haddii etoobiya micna ay doonayaan inay ka go-aanna ay si sharafna uga go-aan maxay wadanka dastuurka uu dhigaya faa'ida uu dhigayaa yani sidii eritrea oo kale inay go-aan haddii micna ay ku qanacsan xukuumada kala jira